تجدب مدن مدحوينه waxaa salaan sharaftaada diyaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland mudane ku soo dhawow waxaa farxad weyn noo ah caawa oy taariikhdu tahay 1 Luulyo 2020 inaan xusayno taariikh aad u dheer qiimo iyo qadarin mujtamaca Soomaaliyeed u leh meel kastoo caawa joogo oo ku aadan xuskii 60 guuradii markii ay calanka Soomaaliyeed laga taagay ciidda Soomaaliya iyadoo ay ahayd 26 Juun 1960 oo dhowr cisho laga joogo inay ahayd markii ugu horeysay ee ciidda Soomaaliyeed calan Soomaali ay leedahay oo mara buluuga xidig cad ku taalo shangeesa astaanta iskale laga taagay kabacdina caawa ay muhiimadu ahayd iyadoo goboladii koonfureed ay qaateen calanka iyo isku darkii labada gobol oo waqooyi oo ka horeysay dhowr maalmood iyo koonfur sida isugu yimaadeen iyadoo Talyaaniga iyo Ingiriisku uu kala gumaysanayay uu garanayo aan isleeyahay maanta dad badan ma jiraan oo dadkii xafladda maalinta iyagoo dad mas'uuliyiin ama odayaal joogay waa number aad u yar baan isleeyahay sababtoo bulshada waxaa ka badan intaas kadib ama da'deeda ama si dhalatay ama saaxada ku soo biirtay ama waxyaalo badan oo kala ka sii badan laakiin waxaan isleeyahay waa xilli macaawo oo kale uu garanayo qofkii xilliga calan saarka joogay farxadda qofka Soomaaliga uu dareemayay iyo meesha uu taagnaa iyo dareenkiisu waxa uu ahaa qofkaas maanta caawa in la weydiiyo mudan waa arrin taariikhi ah oo 60 sano aynu soo maray xorriyadda aynu qaadanay 1960kii ee caawa oo kale aynu u dabaaldegayno 60 sano ka hor ma ayna ku imanin ciyaar ee waxay ku timid dhiig iyo halgan dheer oo la soo maray iyo taariikh dheer oo dadka Soomaaliyeed oo la garanayo nacaybka ay gumaysiga u qabeen iyo qadiyada ku jirtay sida ay ahayd taasaa waxay keentay in ay soo maraan halgan dheer oo dadka Soomaaliyeed ay u soo maraan inay xorriyadooda qaataan sanadka 60maadkii waxay ahayd sanadaha ay dowladaha Afrika ugu badnaayeen ee xorriyadda qaadanayeen waxaa la yiraahdaa waqtigii Afrika xoroobaysay bay ahayd iyadoo markaa mustacmaradihii jiray loo waxaynayay halganka dheer ee Soomaalidu ay soo martay mid taariikhi ah buu ahaa laga soo bilaabay Axmed Gurey taariikhdii daraawiishta Maxamed Abdullaah Xasan ururadii xornimo u dirka sida SYL iyo ururadii kalaba waxay ahayd mid maanta qof waliba uu garanayo waxaan ku naaloonay iyo caawa calanka aan saaraynay inuu yahay mid iska lahaa muhiimadaas dadka Soomaaliyeed markaa ay muhiim tahay in caawa oo kale ay gartaan oo ay aad ugu hiloobaan xiisihii Soomaalidu xilligaa isu qabtay iyo dareenkii dadku ay qabeen waqtigaas iyo jacaylka dawladnimada loo qabay sababtoo qofku marka uu soo mara marxalad ama uu dareemo ay jirto marxalad waxa ka maqan uu garanayo oo uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin markaas qofkaas wuxuu aad u garanayaa waxa ka maqan iyo raadintiisa laakiin dadka dawladda ku dhaxdhashay aan arag dhibaatadii loo soo maray aan la soconin halgankii aan la soconin marxaladihii iyo wixii kala duwanaaya la soo qaatay waxay la tahay wax si fudud ku yimid oo si fududna lagu waxaynayo taasaa had iyo jeer waxay keentaa markaa dadku inay isku si u dareemi waayaan ama isku si ay u qaadan waayaan dareenka dawladnimada iyo wixii la soo maray waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ku booriyo oo ku dhiirigeliyo aan xusuusanno taariikhdii shalay aan soo maray aan xusuusanno odayaashii maanta way joogaane sida ay ahayd iyo dawladnimadii sida aanu soo maray iyo baahidii aanu qabnay gabdho badan baa ku waayey naftooda wiilal badan baa ku waayey odayaal badan baa ku waayey halgan dheer oo la garanaya ayaynu soo maray 60 sano
waddanka soomaaliya wuxuu soo maray dowlado kala duwan oo qaarba ay heer ahaayeen. 9kii sane ugu horreysay xukuumaddii rayidka ahayd waxay ahayd xukuumad ku dhisan baarlamaan, madaxweyne la doorto, ra-iisul wasaare oo sidaa u socotay muddo 9 sano 60kii laga soo bilaabo ilaa uu ka dhaco dilkii madaxweynihii ugu dambeeyey dowladda allaha naxariista cabdishiikh cali sharmaarke oo la dilay Oktoobar 1969kii. dhowr maalmood kadib duruufo jiray iyo asbaabo jiray daraaddood ay suurto gashay markaa in markaas iyadoo ay waktigaa jireen waktigii revolution ama kacaanada towraduhu ay ka dhalanayeen inta badan wadamo badan oo Afrika ah inay timid markaa in dowladdii kacaanka ahayd ama militarigu uu la wareego xukunkii dalka Oktoobar 21deedii 1969kii. dowladdaas oo ay socotay muddo ku dhow 20 iyo dhowr sano 21 sano ama 20 sano inay jirtay xukunkaas militariga oo kacaanka muddadaas kadib xukuumadda militariga waxaa ka dhacay kadib aakhirkeedii sanadihii ugu dambeeyey in dalka ay soo galeen waxyaalo badan oo siyaasada oo qabiil huwan oo la adeegsanayo oo markaa gacmo badan oo sheey ay ku leeyihiin taasoo sababtay burburkii dowladnimadii Soomaaliya iyo bilowgii dagaalkii sukeeye ee baahsanaa ee aan ka tegin geedkii ingegnaa qoyanaana qallajiyey wax kastana yaabiska ka dhigay ee wax walba cunay oo dagaalkaasi uu sababay wax Soomaalida u keenay burbur ilaa maanta aad dareemi karayso adduunkii xilligaa aan la soconay iyo marxaladii aan maraynay inta aan dib uga dhacnay iyo meesha aan ku hadhnay